dhowr 20 sano ka hor aan ku fiirsan jiray ama ku dhageysan jiray walina nin dhalinyaraha oo egtahay goorma fanka ku soo biirtay hadalkaas waa soo noqday aad iyo aad u soo noqday sidoo loo sheegi doontaa laakiin wallahi sir ma jirto goorma ku soo biirtay fanka horta fanka hadda ka hor waxa la wareystay Saciid Saalax Axmed Allah daayo waan Soomaaliyeed macallimiintii bariyaha abi kooxda iftina markaas Saciid Saalax waxa la yiri goormaad fanka soo gashay waxa igu maqaala inuu yiri fanka lama soo galay albaab ma la iska soo galay dadku waxay raadaan goorma ku soo biirtay marka hadana riixamar ma kan nahay shima soo gashay Allah ama goorma soo gashay laakiin waa goorma ku soo korortay ama goorma cagta soo gelisay waqti dheer way awas cunug yaraan ahaa oo iskuulkan ka soo bilaabanay sida qof walba la socdaba ardadeedii wali nawaaxiga adduunka ku nooshay Soomaaliya way maqlayaan kulleeytaba iskool Xamar Jajab iskool Xamar Jadiid iskool Kaasa Populaare dadka fanka qaarna ayaga weyn bay soo galaan qaarna ayaga yar qofna ku dhashaa fanka markaan fanka soo galay sababta aan soo galay ma qaano inkastoo leegala dagaalamay hooyada aabay aad igala dagaalameen hadana leekari waa ma maqash hiba qaadan maqal jiro waa leegu daalo damac leega waa marka waa laga cilin waay si walba sanadka ahayd marka sanadkaas wallahi sanadka marka dhaafto aday فلسطين ودي بدنتي سنة كان أجيل سنة كمدوا كل وبحا مركان هن ركبنا وبحا هذا ولا ذويه لكن صد السنة حتى الله وعتن معايا صد السنة كورنا كل يسرها عبد القادر كوري دفتان كل هذا أنا صد السنة كله marka fanka waxa la dhahaa fanaaniinta qofba waxba ku dhaliyo inuu fanka soo galo maxaa kugu dhaliyaday inaad fanka soo gasho wallahi ma garanayo aniga adoo raba arag anagu gurbaan tumayn la arkay ciyaal la waa bari markaan joogno una sheefta ama Xamar Jajab oo habeenkii gurbaan kooxda muusikaaleyda oo xoog dalka Soomaaliyeed iyo kooxda biliiska jirjirta oo galabta khamiista ninka xasuusanahay dad badan marka aniga mid kale da'deeda ma badafira yani sababta da'da waxaan u dafiray inta ka hora Ilaahay jannada ka waraabiye Maxamed Umar Huriyo wuxuu arkay dad sheekaysanaya oo marka magacoodana sheego oo hablaha waa bari u badnaa markaas waxay lahayd ma ana waxaan ka soo fanka soo kale waqtigaas ma waxaan dhashay waqtigaas Huriyana wuxuu ahaa nin Ilaahay natural kumadi Ilaahay ka dhigay caadi ah markaas wuxuu yiri wariyaare ما تحشوتان مكاسدين وايو inaad wax fiican sameeynaysan ba umaleysaan buu yiri masaariifta Ilaahay baa inkareysan Ilaahay intaas idin soo nooleeyay ee idin risaqay ayaa dafuraysan buu dhaaya daadina caadi iska sheegta marka hadda daada ma leen karo daada wax lagu faana waaye daada aan aniga gaaray hadda dad aan gaarina jira oo Ilaahay jaanis u siinin inay soo gaaraan waqtiga maanta aniga aan helay ونصيب إن عمر درهشوا ونصيب إن عافمات هشوا إلهي بام الله عز وجل أنت هيسنا الله سي عافمات أنت هيسنا الله زايدي markaad fanka soo galeysay heesta kuugu horeysay qaad maxsuusata ama heesii fanaaniinta kale ee jirtay oo ma aqaadi jirtay maxsuusata heesa iskuul heesa inta badan heesa iskuulka rawaayadii iskuulka Xamar Jadiid oo kale Axmed Diiriye meelo joogo maanta oo maqlaaya iyo Cali Sheekh oo laba bara ahaa iskuulka Xamar Jadiid iyo macallimadii ama directooradii iskuulka markaas waxaan maqlay inay ku dhimatay Mareykanka jannada Allah ka waraabiyo oo la jiray Sayna Maxamed Yaxye marka dambana haysatay gabdhaha kacaanka ee afgooyay haysatay maama aad qaali u ahayd dadkii hore wax bartan ahayd in California ku dhimataan maqlay Mareykanka marka Sayna Maxamed Yaxye ayaa meesha ahayd kooxda Notimation markaas iftiin bay ahaayeen waxaan ka xasuustaa Seeraar Amiin Jani marka ma jirin iftiintan kala markaas marka heesii iskuulka ahayd iskuul Xamar Jadiid oo markaas markood aan galnay iskuul Xamar Jadiid marka fanka soo gashay ma heesaha hirgalaad ku heesaha hirgalaan galnay iyo
marka heesta uga qayb gashay saahirka dhowr hees ilaa heesta beer qabowjo kale oo qayb kale muxuu ahaa ma yeelo jacayl waa taqaanaa heesta la yidhaahdo kabacdii isla markiiba waa la kala nasiib badan yahay dadka ilaahay cidna cid kama fiicna dad badan oo iga fanaansanaa jira aniga ama aan ogahay inay fanka iga fiicnaayeen iga fanaansanaayeen iga cod macaanaayeen iga aktarsanaayeen iga laxan fiicnaayeen wax badan iga fiicnaa laakiin jaaniska aan helin jaaniska dee ilaahay baa ku shaqale kaas nasiibka ama xas ama wixii ilaahay ku qora lakiga waa wixii markaa ilaahay ada ku siinayo laakiin ilaahay wuxuu i siiyey jaanis aan ku helo inaan dhaqso soo caan baxo oo kuwa markaa iga horeeyo gacan qabta xataa oo aniga iga wanaagsanaa xataa aysan helin jaaniskaas marka heesta beer qabowji yaa sameeyey waxaa sameeyey cali barre xuseen ayaa sameeyey laxankii muusigan anigaa sameeyey oo markaad heesta ugu horreysay uga qayb galaysa laxankaaga iyo muusigaaga anaa sameeyey heestaas anaa sameeyey heestii kale ee ama aan caanka ku noqday fankayga midda kale ardada iskuulka horta lamarwan u ahaa iyo macalimiinteeda sida macalimiinteeda uu ka mid ahaa cabdi moses guul oo iskoolkaas bilaar macalin ku ahaa waa kuu sheegay cali shiikh iyo axmed diiri oo macalimiintii shaqada qaranka waagaas ahaa waxaa laakiin aad iyo aad markii dambe ii caawiyey runtii oo tahay inaan xuso gabdhaha hobolada waaberi iyo wariyayaashii reeriga muqdisho kulligood wariyayaasha reer muqdisho yar iyo weyn mahad baan hayaa iyo gabdhaha waa beri oo aad ii saaciiday macnaha dumarku way ka activesan yihiin ragga sometimes waana in lagu tirayaa dumarka inay dadka indhergaradka ama ileerta ay kamid yihiin sababtoo ah markaa waxaan ahaan ma ogeynba ayaga unbaa go-aan ku gaara inay ii yeeraan oo rawaayad la soo celinaya markaas alaqaasin ka maqnaa booskeeda anuu markaa waa berin nin yarna iska ah ayira booska inankaas noo qabto inanka jubay heesaar galgalay saasa lagu yeeray tan labaad haddana hees haddana waxay ahayd doob qalanjadii gabay booska alaqaasin haddana waxaa ku sheegtay qof walba waxbuu ku caanbaxaa ama hees buu ku caanbaxaa oo nasiib ku leeyahay heestii gobolada oo barnaamij la oran jiray daljir oo markaa uu socodsiin jiray ilaahay hadda iyo cabdiqaadir maxamed mursal wariye qaran ah wariye weyn ah magaaladan hadda nala joogo abaal weyn igu runtii igu leh sababtoo ah cali jaamac boqorre ayaa sameeyey cali jaamac boqorre oo markaas joogay sacuudi carabiya magaalada magaceeda khamiis mashaad joogay ayaa soo dhiibay barnaamijkaas dadka qurbaha la wareysan jiray dan cabdiqaadir maxamed mursal ayaa barnaamijka socodsiin jiray isagoo isla markaana ahaa agaasimihii guud ee raaday muqdisho heesta beer qabowjaha rabaa dadku inay ku nastaan waayana ay soo xasuus erayadeedii wax ma nooga sheegi kartaa intaan heesta dadka dhegeystayaasha waa runta marxaba falastiin heestaas waxaa waaye raggu belada uu maro baasihii ka sheekee dumarkuna baraaraha beriyo waxaan barbaasho soo bileeyaa caashaqa ma isaare buur dheer baaxadagiisan la dabaaldegaya adna ima bogsiino hadal badanka laabtiyo beer qabowji ima oran dan habeenkaas waxaa socodsiinaya hayloobin ninka guran ee hadda jooga VOA-da ibraahim xasan garabay daandurey ayaa socodsiinaya barnaamijka my friend saaxiibkay ex Ancelotti waa beri Ancelotti alamooda intaasaas ku naanay daandurey marka daandurey marka hore isku taqaaneen markaas aad barateen daandurey wuxuu ahaa dadka markaas iyagoo yar isna bilaabay sida anaga fankaan u jecleen ayuu ilaahay magis ay remember him asna wuxuu jeclaa sanadka inay sheegtay marka waxaan rabaa qiyaasta daandurey inaan ka qaato sanadka oo daandurey sanadkiisa ma dheera aad buu dheera ma fahamta marka ibraahim xasan garabay marka wuxuu asigana I remember high school uu dhiganayay isla markaana wariye u ahaa wariyaha markaas ugu caansan xaafadeena waa beri iyo isla markiina waxa dadka ku kala qaatay markuu high school ka dhameeyay 19 adiga samaniyada dhama marka soo laabano riwaayad waxa sheegtay doob qalanjadii gabay inaa gashay maxaa kamid ahaa doorka riwaayadaas ku leeyahay heesay doorka marka hore waxa dhigay alfanaan qaali walaalkaas macallinkayga Saalax Qaasim Naaji ayaa dhigay marka Saalax Qaasim marka carabta ku maqnaa
روايدنا دكالاس كلها إن لدقي هيد وقف لو دقو مركا دان بوس كاسا كبنانا marka dad badan la sukan keenay gabdhaha waa bari marka saal roos meel la xasta teatrka aygo maalinka teatrkan soo galay waxa ay hor yimid fanaaniinta yarka wareen wal raadinay fanaaniinta qolka la galo xalay riwaayadana rabnaa inuu dhigto marka fanigu wuxuu ahaa dhaqsan warna inaan ku dhignay ma heesahan meeqa ku soo xafidi kartaa iyo warqad garaartan ku qorno wallahi bariba waa keena what bariba waa keenaya إلا مركز مسكحة فريش مسكحة فريش مركز وحي مركز مد كله مركز وحواك وذا هذا اسمه ودي إن طريقا غير مرتو أو إلهي ماشى كاسو باللابو سكسس مركز ديبو فيري واحد سومري from مقدشة to هرجيسة وين يابا معناه وين هذا وحياة بدنا أنا قلت لك لنا جرتا أو مردم بيها بس شيء كنت ماشى سياسة كنا قطي إيش كان نصيبك إلهي marka riwaayadii albursiya soo riwaayadii ma kala been dhigay ahayd riwaayadii halka been dhigay ahayd waxay noqotay waqti badan in lagu sii celceliyo oo gobolada kale la geeyo ayaa noqotay meeshaas ku barna waa bari aniga dan hargeysa oo marka hees ugu horeeyo qof la qaaday yaa la qaaday fanaaniinta gabdhaha wallahi hees gabadha ugu horeysan la qaaday inaan hees ku xuso maaha sababtoo anagoo yaray wadaad noqotaba مريم بس اللي جرك بدرس قف كي قانا غير ولا ذاك وايس رايد سكول حمر جديد إن حسين مدنتا وقبل يقول رئيس مريم بس ما كده مر ولادي نقطة متدوعة قبل إسلام مركي نقاب كأنه وقام بفنكم ممكن جرب سكول أهم بس رايد سكول قبل يكلوا ليه استمرك وقدر الداهر إيوه قدر سندير مع زهرة أحمد كنس حاج آذن مني عبد الله حرسي حبيبة حسن توحو زهرة دو هرو سادو مانديخ محمد وين مدنان بلاد يشرف dadkaas oo dhammaan maandaq maxaa heesaha la qaaday waxaan la qaaday heestan oo leeyahay dhul guud cuskada roob markuu horeyso aydan la qaaday marka reedada maxaa kamid ah dhul guud cuskada roob dalsan ayriina oo maxamed jaamac kayd baa sameeyay maxamed jaamac dhagoole kayd ayaa sameeyay nin mutacallim ahaa oo macallimiinta la fool ahaa haddana Hargeysa ku nool ayaa sameeyay aad u akhlaaq badan oo muxtaram ahaa ninkaas ayaa sameeyay
fanaaniinta aad sheegtay qaar badan oo kamid waxaa moodaa inay ama dadku kugu yaqaanin qadro kale heesigeeda aad iyo caan u yihiin alla fareenan ina qadro joojiga ku soo arkay marsi maraysa waa fi ishaaradu cid isbeddelaan she's smart waxaa jirto kale Sahra Axmed maxaa la qaaday heesaha la qaaday Sahra salaamad waxaan la qaaday riwaayad uu sameeyay Ilaahay u naxariistay jaamacadaad oo reer Burca ahaa oo abaalku rag geystiyo ilooshii hablooda la jira marka Sahra iyo Kinsi Xaaji Aadan Ilaahay jannada ka waraabiye ayaa igula jira riwaayada labadooda dadkaasi runtii way iga weynaayeen haddana qofna ima dhibin waxaa mudnaan gooni ah ay tahay inaan siiyo dadka aniga aad ii soo dhiirigeliyey oo ka mid yahay Cabdullaahi Cumar Dheere ninkii yaqaana Buulo Absuge Bakaaraha Cabdullaahi Cumar Dheere Cumar Suudi calas muxuu ahaay ciyaalka Bakaaraha dhammaantood yar iyo weyn Bakaaraha oo howladaag ciyaalka hodan laakiin degmada hodan agagaarkeeda wax deganaa Kooso iyo Botibu iyo everybody in marraba inaan mid u kala magacaabo markay waxay waqtan uma hayno qofna inuu iga xumaado heesaha qadra la qaaday mid kamid ah rabna dhageystayaasha iyo daawadayaasha inay ku nastaan tee ugu jeceshaa heesaha qadra la qaaday والله قطرة أنت الله قاعدة وأنا وجهها قطرة أنا واحد إسلاء فن عندنا صحيبا عندنا سيان أنا كله صحيب على فنان أنت ولي قبلها أدبا عزية صوبتها وعزي مذيين با صوبتها وأنا كل هيبة أيجا لا أنت وضحوا مع هذين با إلهي كسبوا هس موسوقة بقى قطرة وأنت لنا هي وممكن هيبين هي أسمان عسكري وأنت لنا محاكم لها أريد رواية لما كذا هستيده وأنت لنا دوغ بابحي اها وبخي دلا اسلا دونشيو حريد با دفون ku dabaalanay araf lama dago lama diidi karo wadeeqila Abd Qaadir dagaalada markay dhaceen kadib heesaas sameysay ama aqaade maxaa kamid ah heesaas oo dhibaatooyinka wadanka ka dhacay iyo kaga hadashay wallahi فلسطين يا باي معان marka la wareystay abwaaninta waxa badal korta laga horta fanka uu saxday fankana waxa saxiyay fanku wuxuu kamid yahay waxyaalihii dalku ku dhisnaa ee burburay ayuu qayb kamid yahay fanku sida aqoonta u baabacday iyo waxbarashadii iyo jaamacadii sida wasaaradii u baabaceen oo kale sida dhaqankii u baabacay oo sida xigtadii iyo xigaalada isu leysay dulinimada ama jahilnimada sababta Soomaaliya ma aysan lahayn constitution qoran Soomaaliya ma aysan lahayn laakiin Soomaaliya constitution-kada wuxuu ahaa xidid iyo xigaalo daris isxurmeeya markii taasi dhacday oo taalist baabasho lisdirana waxa meesha ka baxday constitution-ka Soomaalida oo ahaan mid qoran oo ah in oday la dhageysto in dariska la xushmeeyo gabdhaha in la xaq dhowro maatada in la gargaaro intaas baabaaday marka abwaan walba wuxuu ka cabsaday haduu wax ka hadlo in la yiraahdo reer baa ula jeeda ama meela ula jeeda sidii hore loo yiraahdo hadal waa margiyo hada meel ama abwaanid naga horeeyay abwaanid waa weynaa hees ay sameeyeen oo aan kacandiid ahayn loo jeedo waa kacan diid waaye ama kuwa kacaan loo jeedo kacaan waaye kuwa oo gabar aan ku saabsanayn loo jeedo kuwa nin aan ku saabsanayn loogu saari jiray oo kale ayay waxaa heesta la yiraahdo qad cagaaran waxa ka soo gudbi jireen qad cagaaran waa taqaanaad markaas oo dhinaca kale u gudbi horta marka xamal ma joogtaa ani ma joogan xamal qad cagaaran waxa la igu sheegay heesta ninka sameeyay waa Abd Qaadir Shaali Shukri oo ila soo hadlay marka heestu ii sheeg wuxuu ka sameeyay wiil iyo gabar isjeclaa markaas in isqabeen in kala ma garan laakiin isjeclaa laakiin labada side kala jira ma kala aha markii dambana kala dhumayn oo kala carareen isu iimaan waaye balaayi qatar dhigtay ما ولا صوت أفكر أنا صوت ويل كأمو دافع وايد هذا قبل دافع كتنا قبل دافع لكن سومالي ذو قرمده وايد شيء عقل كيعقويان كيدلان ما بعد مركا إنه أتجي ويقف كي على جواني كان ما كعبقارش على الشكري أي شكستين دن عبقارش على الشكري سوى جو
Italy ayuu heestan ii soo qoray dhaay Cabdiqaadir Bliis heestan shaasan ka sameeyay laxankan sameeyay markii music dagaalada qabiilkii iyo qolo u dirarkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacayl u dheeraa kulli quusan ma idistro qad cagaaran labadii lagu kala qabiray qabiilada khana xoolaha ma kala qabiray qalbiyada la kala xiray ee la soo qoonsada naf qaylidaana qaramada midoobay qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoraalada jacaylka iyo fariimaha ma qaadaan qaracda halkiisa wan qaboobila dagaalada qabiilkii qolo u dirirkii taxayo dhibaatadii qof jacayl u dheeraa kolley quusan maaye dagaalada qabiilkii qolo u dirirkii taxayo dhibaatadii qof jacayl u dheeraa kolley quusan maaye lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xiray ee la isku qoonsaday nafu qaylidaana ahaye qad cagaara labadii lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xiray ee la isku qoonsaday nafu qaylidaana qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoraalada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiise waan qaboobi alla qaboobi ayana qaboobi lahaye qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoraalada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiise waan qaboobi alla qaboobi ayana qaboobi lahaye qaraxiyo asaastiyo qarakii bukuraye qoys bakooni loo habaye
hablihii dagaalkiyo qoryihii la wada siday qaraxiyo rasaastiyo qabticayda noqdeen kala qaride labadii aan qoys wadaagine qayrkood kuwii tagay qurbahana aan soo gelin qabticayda noqdeen kala qaride labadii aan qoys wadaagine qayrkood kuwii tagay ciidan dambe heesa marka ma qaad ma samaysay heesa jacayl ah hadda jacayl la sameey karaa sababtoo hadda dumarkii awood leh marka waa in heesa loo qaado hees gabar lagu caayna lama sameyn karaa no qofna ka dhageysan maayo waa ina maanta dhan tiraada sidaan oo taala guduuday waa qurxantay eedaba leedahay ma fahamta markay marketka ayaga ahaaya tan ayaga ahaaya lacagtan ayaga ahaaya awoodin ayaga ahaaya runtii kana hila badan rag wallahi billahi ka hila badan gabdhaha Soomaalida aniga waa ogtahay Falastiin gabdhaha vankeyga markay la tacaydeen waxa la boqolkiiba boqol gabdhaha Soomaalida ay Cabdiqaadir vankiisa sababtoo ah way ka naxariis badan yihiin ragga for example dan ku soo qaato markii la soo qaxay ama dagaal u dhaceen reerkii 10 wiil lahaa iyo reerkii gabar lahaa waxa badbaaday reerkii gabar lahaa wiil iyo gabar ay dhashay madaxa la qabsan jiray waag hore gabar ay dhashay naagtan shan cunug dhashay iska fur waxaas markii hadda waxa la raadinayaa abay 10 gabdhood ii dhal san macawiisi cimaamad u helo oo noolaa marka dumarka Allah hada heesa shirbaha soo qaatay oo ka waran bal heesaha shiribka Jabuuti jooga marka shiribka no horta marka waxa ka horeysay Allah jannada Allah ka waraabiye Abdullah Raage iyo aniga ku sheekaysanay meesha Allah iyo Addis Ababa dan Abdullah Raage yani waa sheekaysanay marka waxaan dhahnay Abdullah Raage waa lagu heesay af qoraad aan ka taqaana wixii mudug iyo galguud ka bilowda ilaa iyo Ethiopia taga waa lagu heesay af banaadir waa lagu heesay af my mind waa lagu heesay anaas waxaan ku sheekaysanaa xaankeena ugu heesayna xaajira xaan ka baqaynaa dad badan jira ma fahamtay oo xaq u leh inay heeskooda la dhageysto marka heesti uu sameeyay Abdullah Raage Jansa markii isu weynay waana ballan qaaday inaan sameeyo hees naxwaas xamar iyo agaarkiisa anagoon qabiil ula jeedin wax kale ula jeedin sababtoo cid walba meel degto Soomaali ixtiraamkeeda leedahay afkaana dad badan iskale aad u badan ayaa iskale macnaha marka heesta habboon marka sameeyay heesta habboon ayaa sameeyay maada sameeyay ma aan ma sameyn daahir irla sameeyay oo hadda xamar jooga laxankana CD cali winkay anu ma yiraahdo laxan qofkan CD cali winkay waa fanaan buuxa daahirna waa nin abwaana marka waxa marka yaab lahayd heesta daahir baa sameeyay cadaado ka imaade CD ayaa laxan ka sameeyay xamaro ka imaade juba qaaday xamaro ka imaade gabar loo sameeyay warshiqe ka imaade ninka heesta sameeyay oo ka hadlaya xaaskiisana dhus maraba ka imaade heesta waxa isku noqotay hees shirba waa shirba heesta laakiin dareenka jacaylku aan habboon rabnaa inaan dhageystayaasha soo qaban iyo dadka daawanaya heesta habboon bal wax nooga taab cirkoo kaaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shubayo rabti ay warshiiqahay ku rusheeyay reedaha anoo dul joogo raas qabow habboon ma raba ruux kale waay bashar halalo dilagu barbashu barini ma udeerto billahi baliya weya bashar halalo dilagu barbashu barini ma udeerto billahi baliya weya
marka ma heestaas ahayd mise heesta kale aad kadib soo sameeyay ma waa sameeyay heesta waxaan sameeyay kale oo Djibouti oo kale I love Djibouti and they deserve it inaan jeclaano ma walaalahay naga yar madaxweynahooda iyo marwadiisa iyo dadka reer Djibouti iyo madaxdooda iyo dawladooda iyo shacabkooda madax maalqabeen iyo maskiin reer Djibouti waa dad oo Soomaali aad u jecel oo marka tagto Ethiopia waan taganiga Kenya waan tagay markaan Kenya tagay wallahi inaan dareemay inaan meel aan ku nasan karo ama aan qalbigayga ku fiicnaa marka Ethiopia tagay ma feel gareenin meel nabada inaan joogo ilaahay baan ku dhaartay markaan Djibouti ka tagay waxaan dareemayay inaan joogo xamar oo kale ama Hargeysa oo kale Boosaaso oo kale inaan joogo oo dhulkayga amana waana hinde anagana waa usoo dhiman anaga marka Djibouti maxaa u sameysay heesaha u sameysay heesfaan u sameeyay heesta marka aniga iyo Jaamac Maxamuud Xayd Ilaahay janna fartuusaha ka waraabiyo iyo Ahmed Ismaan Geela Arab oo nin baamushtara ah ayaa wada fadhinay iyo markaas la isku soo qaaday heer Djibouti hees Djibouti hadan Ismaaciil Jahaye oo inay yar 30 sano marka aan gaarin ayaa nala joogay gaariga bay habeenka nagu qaadeen Jaamac iyo Ahmed Ismaan magaaladan soo dhex marnay ila ma kala garan aniga magacyada xaafadaha moogtahay Djibouti tahay dan yarkii heesta soo sameeyay maalka dambe laakiin heesta waxa ka masuula in heesta la sameeyo janna farduusa la geeyo nin geesiya oo Soomaaliya oo reer Djibouti oo cidna aan dambi ka galin oo sharaf iyo karaamo mudan ayuu Jaamac Maxamuud Xayd aad iyo aad fanaan ah ila dadkan la yiraahdo in reer Djibouti waa fanaaniin haddana marka la yiraahdo Jaamac Xayd iyo Almis Xayd iyo Qatra Xayd iyo abooda wuxuu timo jiray codka fanaanka xudeedii saaxiib ahaayeen waa dad dhiigooda ku jira fanka hadda arta madaxweynaha Djibouti asana ka jecel fanka asana ka jecel dhaqanka Soomaaliga isaga naga jecel waarad aad buu naga jecel yahay mar allaale hadda ninka sameeyay waa arta madaxweynaha Djibouti Allah daayo
barnaamijkii hadda oo la dhisay museumka cusub oo af Soomaaliga inuu ku dadaalo mar walba inuu af Soomaaligaas aanu dhumin oo hiduhu dhumin marka waa dad fanaaniin احترامه وكي أنا فنانين واحد احترامه وحنا وجود بيس محمد سيد برا honestly هو بري نقدر جامعيين هو بري كلية أرتسية هو بري تحقق الإنجليزي محمد سيد برا هستي أمريكا هستي مركا ما أنا كمان هستي سميني موسيقى لحن أنا سميه موسيقى كسميني دن واحد حسوستا حاجة قطر مروان كوا درك جيبوتي قطر محمود حيد ayaa marka iyo madaxweynaha xaafadoodan maalinka tagay xaajida cabaar qofka markuu wadanaya waa dareemaysaa ama waxaan ay ka daacatahay jaamacana marka uu nala taagan yahay walaalkeed cabaar gacanta saayaysto waxay ku tiri walaal ku soo celisay waxay ku tiri walaal imisa ayaan raadinayay tiri hees Djibouti ah oo noocaan oo kala ah waad ku maasan tahay ma fahamtay anigu lacag ma doonaynin wax kale ma doonaynin laakiinse Djibouti waxay iga go'an tahay haddana waa ku dheeray Djibouti dad waxa iska jira raxmad shiila hadii Djibouti u baahato aniga dhiigayga laakiin for example maalintii Eritrea ayaan kale in askari u noqdo qori qaato wax ka difaaca sida aabayaashan anaga u soo difaacayno kale ayaan diyaar u ahay marka heesaas ku soo baxday sabadii tixgelinta Djibouti heesta marsisoorka deeqda leh ugu sidatay geeska Afrika sama lagu yaqaanay بقعدي سجانتي سمركي دلقاتك هرموس سنتيديو سيتيدو إذل إيو وجبوتي وأدواتك جبوتي مرسين ويكش كان ستيب باي ستيب هرموس حافظي قف كسر جبوتي معناها حد كويه وحنا كدم بيه مركا إن هيست سمين لكن وح كدم بيه وكل مركا له إلهي جنة فرجك جامعة محمود حيد دارتر البنكيجا مقالة بسوا مرسين مقالة أحمد عثمان قيل عرب labada snin ayaa ka mas'uulaha heestan maanta waa taade hees aan noqtay caana oo macnaha heesaha reer Djibouti way naga istaahileen inaan u ogaano siday noo soo dhaweeyeen ama aan ugu dambeyntii heesahaaga heestaas leedahay lagu soo gabagabay barnaamijka waa noo soo qaban lahayd anigu heesadii aan ugu jeceshahay heesahaaga Soomaaliya daawada xalada عبد القادر محمد مرسل ayaa ii dhiibay علي جامع بقرة ayaa sameeyay laxankii muusiga aniga sameeyay waa hees sometimes markaan qaada hataa inaan ilmeeyo macnaha markaa laakiin Djibouti kalma habeen ka qaaday Djibouti kale oo xafladda ay sameeyeen marwada madaxweynaha iyo jaamaca maxamuud xayd iyo axmed cismaan geeli oo aan ka sameeyay meesha وان علمي وي ودغاين sababtoo mar alla markaan ku soo baxay tiyaatarka oo arkay horteeda fadhiyaan in dadkii madaxda ahaa oo Dilayta Maxamed Dilayta kamid yahay marka barnaamij sirbo ahaa iyo all of them wasiiradii iyo kulli iyo shacabkii oo marka ay makaan soo galay marqaatibi ka wada hayeen ilma ay ka timid tan message waan ka baxay sababtoo waxaan soo xasuustay tiyaatarka xamar iyo kii Hargeysa karaamadii aan lahayn sidana aan jirin horta karaamada cidna ma qaadan anaga iska qaadnay ilaahay karaamada ma qaadan lima nin ku tahay nin la iska ma dhigaaleeyo Soomaali wuxuu nin iska dhigaa ninka walaalkiisa kaliya dalkeena waa baaba'aya shacbigeena waa baaba'aya dunida badaha la digay waarta ciyaalkanaga si kasta u dhamaanay aniga maanta hadii laga dhiga madax waxaan la yaabana dadka madaxda noo فلسطين هذه أنا ما أنت مدح لي قديو أو أن قاتو إن كنت مليون $100 مليون ولقي ما هي سنة يا وما وعندي من يا بري دينتين الإسلام كما دان دبوا دل عنا لعقتها قريها كل إستو وحيالها قصة ميسو تنبي قالوا قصة ما هي فسقة قصة ما هي المها جاء مع أصحابته هذا أم وحي أكتر تسوى هذا كم مسعود ما نسميه مركا إن أنا وحبك قاعدا الصومال ذا مقدشو iyo Hargeysa iyo Boosaaso meel kasta ku nool ee silcaysa gaajada dulayso intaan waxooda dhici lahaa oo xad lahaa oo aakhira la cadaabi lahaa qabrigana lagu karbaashi lahaa maan sameeyo inaan waxba xadin mushaar fiican aan qaato ilmahaygana ku noolaadaan ixtiraam I don't know ma tagaysaa Muqdisho
ama Soomaaliya meel kale oo kamid ani boqosoo tagaya boosaaso waa Kismaayo waa tagaya Baydhabo waa tagaya Jamaame Hargeysa Burca Boorama Soomaaliya anu fanaan baan waa aroon kar qabiil sababtoo ah annagoo shandad empty ah ku jira ticket bilet ku jiro gaarana sidana oo basiinka aan ku laaban lahayn marka aan nagu jirin ayaan tagi jirnay magaalo ama markaas ha hata Kismaayo ama hata Boosaaso ama hata Burco ama hata Cergaabo ayaa tagaysaa markaas waxa lagu bedelayaa ticketkii iyo boorso empty-ga lagu lacag laga buuxinaya dadka kastaas ku jeclaa سوق بيارده هيش no way هذا قرش له أضو مدة كرا طبعا هلي كرا طبعا أضو هلي كرا ما حقوقنا يسال بيا حل إيش أضو نولاني نوليجا أنت سيدي أبها أقول أنت أنا أبيه منولا عمر منولا يوسف منولا أفرحنا منولا أصبلنا منولا ميانا أنا أقول جدنا أنا بريد منايو محان وهذا يا حق إسلامك محان أحمانا يا قف صومالي هواي إن لو حنت يكون في عنتها إن لو حس يكون في عنتها هذا يكون في عنتها دمجك هجيرانه لكن هذا علنا حس وحجر الفنانين وأيضا سو هسه أدين كنا فنك طبعا وكسي دقوبيسان كو سبنا واسو كلايا ما دقيست أنا كنت دقوب حتى مرة باني هاي قلت هين بالك أنت أنا كل سيد عارف مرة أنا قد قصي دقوب مرة باني وحكى في عنها يسألوا إن شاء الله فنانين تحضر سو كوي دقيستها ساسو وارك تعرف الكل والله تفكويشن واي فنانين تعصب marka hore aan dooqigaas ka yaraaba fanaaniintii horeba waxaan dhageysan jiray kuwa dadka ay inta badan dhageysan ayaan dhageysan ayaa dooqiga aniga sida Abdullah Harago kale ilaa jannada ka waraabiyo sida Umar Nuur Abdullah kale Umar Dul Ali Maxamed Kuluc dad badan jira oo dooqiga ma koraba gabdhaha waxaan dhageysan jiray Aamina Feer ilaahu naxariisto waan dhageysan jiray kulligood laakiin qaar ma ka heesayaan ay taabtaan ma touch ayaa jiray ma fahamtay laakiin kuwa hadda horta problem baa jiro hadda waxa lagu heesaa waxa la yiraahdo artun waxa lagu heesaa waxba lagu dardaraa wixii shacbiga iska dhaaf oo dawaqsan anaga حتى فنانين حتى وكلا قررنا which one is good which is كيف عن كيس عن فعلا سيدا لأن قارب ما دقيستا وجران ولا كوس تلك الجوجان دقيستاني بكيكون تلك الجوجا بنتو دايريو ذاك سومالي جوجا فنكوية قاني سوما لكن أنا إن انترفير كسمايا كي بلي باكويسي كي عارتون كدر سنة أنا اللي محر صارن أنا كنت يعني لسه تقول سبحانه أنا كلا صار من ربع اسطنبول ما أي كنا نجيست كل هروا كلا صارت كل جودة نجيست كل هروا كلا صارت كل هرتا ما كلا صار كل هرتا ورجيت لكن كل ديب يتابت جارك كوتا دي كوان كل جود كل جودة نجيست ما سيجارة يا كوتا no كو هذا هيسا كل جودة نجيست marka waxa u qaatay marka see u aragtaa fanki adinka maadaama ka sii socotaan fanaaniinta cusub ee hadda soo galaysa abwaanada cusub ee soo galay fanka ma sii hin karaan meesha gaarsiiseen ma gaarsiin karaan wallahi abaan horta way jiraan Maxamuud Kale Cismaan Allah yarxamo wuxuu yiri mar uu la isma garab dago dad ma wada sinaan karo adduun waa istabamaal shalay waxa wariyaal ahaayeen Faadimo Hirad iyo Luul Ala Xasan iyo لور تهليلي قبلها أتقال ما فهمت ما أنت فلسطين يجرب كذا إذا كلا في عن قارنا وأنا أنا قلنا واكلنا قانا كوفي أنا بريفيشنال كوا أنا فنان وحنا وقانا فنان كشقيستا فنان ككلين فنان كفاميلي جيسي الميس أنك تجين أو كورقبة فنان كإلهي أنك فوجانين هذا أول إن هذا سيفو كان هذا أول بكجرة باشال إياه لكن إن هذا إلهي مرول با إياه رير كاغا يا أصحاب هذا أهل كاغا هذا كفوجانين كاس عن فنان وقانا فنان وحن جعله وغش جعله فنان كحرقه هذا اللي بيستشقيسته
laakiin hadduu ku yahay fanaanku subax baan soo kacayaa 10 saac soo kacayaa galabtii mana shaqo tagan waan shaqeeyaa hadda wixii kale oo iisa oo aan samaystana waa extra ilmahayga waxaan wahay macallin ilmahayga daarka maalinta anoo meel fadhiyo ilmahayga ayagana saas oo kale fanaaniinta yarkaa soo gelaya qaar baa aan jeclahay oo shaqaysto wax qabsada laakiin inaad meelaha fadhido aroos gaado inta kalena aadan shaqaysan taanu ma jeclay marka fanku intuu sii gaari karaa fanku wuxuu sii gaari karaa hadii fanaaniinta cusub asla qaar waa laga helayaa waanad qaar baa laga helayaa fiican baa laga helayaa qaar badan oo fiican ayaa jira oo laga dhexeli karaa dhowte laakiin sida anaga aan helnay jaaniskaan helnay oo la kala saarayay laakiin heesaha hirgaloo kale ayaga maysan helin aad ma santa Cabdiqaadir Allah yaqliik igu salaan dhamaan VOA
روح هذا النقال وسوى رفتا وتعلنا عددا وتعلنا كسمايا يبقى غشينا إلي تشيديو القرطة وتعلنا القرطة وتعلنا دالي يوم حينا روح هذا النقال كروتها وتعلنا وهولتها وتعلنا إلهي بالي تقدم نفسه ماني بالي تلقيني نويان كنت الحس معانا دويا نقشوا معانا الله تاني يحشينا تعادي يوم إسلام كينا تكسر لك برتان دل إلهي والي قدرني بنا صومالياني دل كيجينا ويان كنت الحس معانا دويا نقشوا Kutairo, tabashi poka, dahlo katigayo. Dekas kokaratana, tunilago abasado, takalagama waye, lagama waye. Kokayo baharami kutairo, tabashi poka, dahlo katigayo. Dekas kokaratana. Lagu abasado tak lagama waye lagama waye Babiya Tunturaya Kutuntumaya Bera Shirita wa ta'alan Iskata wa ta'alala Chamameta wa ta'alan Uyta wa ta'alala جوهرتا وتعالى اسكرتا وتعالى كل بدرتا وتعالى اسكرتا وتعالى يا حي بينما دولو بلدوين مركتا وتعالى اسكرتا وتعالى وقت الشتا وتعالى ويويتا وتعالى بينما دولو بلدوين هم يداو تعالى اسكتاو تعالى بلعتاو تعالى داو تعالى أنا حي بينما دولو بلدوين داو تعالى داو تعالى وهم داو تعالى اسكتاو تعالى صوماليا داو تعالى اسكندر تعالى انا اهداو تعالى وي داو تعالى
وشد داو تعالى داو تعالى كسمايو داو تعالى اسكت داو تعالى حيو بينما ضرود من صوت داو تعالى اسكت داو تعالى وردي لي داو تعالى ويداو تعالى صوماليا داو تعالى اسكت داو تعالى حمر داو تعالى داو تعالى يا حي بينما دورو بلدوي سيدر داو تعالى